shirkadda WhatsApp ayaa soo saartay sharci cusub ay ku soo rogtay dadka isticmaala barnaamijkeeda kaas oo lagu gol leeyahay dadaal ay ku doonayso inay wax kaga qabato wararka been abuurka ee sii faafaya. shirkadda Facebook ayaa horey sharcigan ay qaadatay WhatsApp uga hirgelisay wadanka India muddo 6 bilood laga joogo si wax looga qabto wararka been abuurka oo noqday mid adduunka dhibaato ku haya kaas oo sii faafaya iyadoo la adeegsanayo aaladaha ay bulshada ay ku xiriirto. go'aanka WhatsApp ay qaadatay ayaa lagu shaaciyay munaasabad ka dhacday caasimadda Indonesia ee Jakarta xilli wadankaasi lagu wado inuu ka dhaco doorashooyinka guud bisha Abriil marka la gaaro. waxaan xadidaynaa in fariimaha la isku xawilo adduunka oo dhan ayuu yiri afayeen u hadlay shirkadda WhatsApp. tani waxa ay gacan ay ka geysan doontaa in WhatsApp ay diiradda ay saarto fariimaha gaarka ee la isdhaafsanayo inay dhageysato falceliska bulshada ee ku wajahan mawduucyadan la isku dirayo ayuu intaasi ku daray afayeen ku hadlay WhatsApp. go'aanka WhatsApp ayaa noqon doona mid qofka u ogolaanaya in fariimaha uu xawilo ilaa 5 qof oo kaliya iyadoo markaas kadib la hakin doono fariintaas inay sii baahdo. WhatsApp ayaa horey waxay u adeegsan jirtay nidaamka end-to-end encryption kaas oo ah in fariimaha kaliya ay arki karaan qofka diraya iyo kan uu u dirayo waxaana ka maqnaa awoodda shirkadda ay kula soconayso wararka been abuurka ah. toddobaadkii la soo dhaafay shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay hawada ay ka saartay 500 oo bog iyo koontiyo lagu sameeyay barteeda Facebooka kuwaas oo lagu eedeeyay wararka been abuurka ee bartamaha qaaradda Yurub sida wadamada Ukraine iyo dalalka kale ee bariga Yurub ku yaala. waxaana sidoo kale ay ku dhawaaqday in ay shaqaaleysiisay hay'ad qaabilsan la socodka shaqadaasi oo xarun looga dhigay wadanka UK.